joogtaan waxaad ku soo dhawaataan mar kale iyo barnaamijka Kasmaal jimco wanaagsan iyo kulanti wanaagsan meel kasta aad joogtaan saacaduna waxay soo gaadhay waqtiga isoo gudbin jirnay barnaamijka Kasmaal oo hadahan oo kale aad kala socotaan radio Hargeysa kana daawansan telefishinka qaranka Soomaaliya waxaad kala socotaan baraha bulshada duwan meel kasta aad joogtaan jimco wanaagsan kuna soo dhawaada barnaamijka Kasmaal macmiil ma ogtahay adeega dahab inaad ka helaysid in ka badan hal adeeg Allah ma hubtaa mid wax ka badan waxaan u isticmaalay dahab inaan ku bixiyo lacagta iskuulka kuna iibsado buugaagta carruurteeda waxaan u isticmaalaa si aan uga iibsano ku hadal iyo xidhmooyinka daatada aan ku diray walaalood mahadsanti adiga mudan walaal waan helay waxaan u isticmaalaa inaan ku bixiyo lacagteeda baska waxaan u isticmaalaa qoyskayga family-na lacag ugu diro hooyo way soo gaadhay lacagtii waad mahadsan tahay waxaan adeegayga kaydsa u isticmaalaa inaanu ku urursano lacagteeda hagbada una furanay ganacsiga lacagteeda dahab goob kasta iyo goor kasta kala bixi karaa Dahabshiil Bank International ama waxaan qofka kaliya aan isticmaalin dahab waxa tahay qofka kaliya isticmaalin gabi ahaanba waa arrin cajiib haa waa iyada dahab adeega digitalka ah ee ku habboon jeebkaaga laguna kalsoon yahay waagaag mar kale ayaan kulanti wanaagsan idilay waxaan u yeedhi doonaa tartamaha koowaad ee barnaamijka Kasmaal ka qayb galay tartamaha koowaad waxa weeyaan Yaasiin Ibraahim Yuusuf macallin Yuusuf loo socodiyay telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland السلام عليكم ياسين إبراهيم يوسف السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كوسو دولا برنامج Kasmaal وكله هاي واحد والبحين قصة ياسين ألقى دقنت هاي إذا شقيسو أدي واحد برشاد وديد أنت والبحين سيكر ثاني إن شاء الله تعالى واحد دقن هاي هل كان دقن ونيو هرقيسة عفد نيو هرقيسة ما شاء الله نيو هرقيسة نيو هرقيسة دقن هاي واحد برشاد واحد معلم بنا هنشري طب تناهض يمكن يمكن هذا وقت كان مشقيه ما شاء الله لكن معلم بعد ضد صبر ان برنامج كان يسفى ورود وقيب قشاف لي انت ودين مرك غير كود لكن بالبرنامج كسا دوارك تدور بحين ان شاء الله برنامج كم محمد اركب وان هذا كور waa galay wala xiriiray barnaamijku aad buu wanaagsan waa tacliim wanaagsan oo isweydaarsi aqoon isweydaarsi fiican way caalamiya marka aad iyo aad baan anigu ula dhacawnaa customerka su'aalaha iyo isweydiinay hadii jeeral waayo aqoon isweydaarsi weey oo qofku waxaan garanay inkastoo tacliinta lama koob karin waliba waxaan garanay ayuu ka helayaa dadka waxaad aad u xasuusataa Yaasiin in laba jeer oo kamid ah dadweynaha caawin doona laba jeerna milma ka toori doono sida barnaamijka hore nala joogtaa inuu caawinisay waana ku bilaabi doonaa bismillaah muraayadu koorta leeg su'aasha koowaad waxay noqonaysaa Haam Saam iyo Yaafid waxay ahaayeen Haam Saam iyo Yaafid waxay ahaayeen ba ilma nabi Yuusuf calayhi salaam ta ilma nabi Sulaymaan calayhi salaam ilma nabi Ciise calayhi salaam ha ilma nabi Nuux calayhi salaam المنبي نوح حق المنبي نوح حام سام يافد waxay ahaayeen xaq ilmannabi nuux jawaabta su'aashuna sidaasi ayay sax ku tahay su'aasha labaad waxay noqonaysaa muraayada koorta waad ku qorayso su'aasha labaad waxay noqonaysaa wadanka Singapore waxa uu ka go'ay dalka Malaysia wadanka Singapore waxa uu ka go'ay dalka Malaysia ba sanadii 1960kii ta sanadii 1965kii ja sanadii 1970kii midna Malaysia Singapore isku mid baahayno Singapore ba markii dambe gooni isku taagtay marka sanadkii baa la weydiiyay ay Yaasiin إن شاء الله dadweynaha hada taasi waagaag waxaan doonayaa inaad nacaawsaan aniga iyo Yaasiin Ibraahimba runtii waa su'aal aad uga fiirsada meel baan marnaa su'aashu waxay noqonaysaa wadanka Singapore waxa uu ka go'ay dalka Malaysia 60kii 65kii 70kii midna imise qof ayaa wax ka go'ay sanadkii 1960kii imise qof ayaa ta waxa uu ka go'ay sanadkii 1965kii imise qof ayaa la ja waxa uu ka go'ay sanadkii 1970kii imise qof ayaa la wax ka go'ay sanadkii 1900 midna asoo noqono
badi yaasiina waxay nagu yidhaahdeen ilaa dad tiradoodu 6 qof gaadhiso 1956 ayuu ka go-abeydha inaan ku raacno iyada laba kasii إن شاء الله وكراعنا يوم كراعنا haddayna qaldaa ka waran macalin خلدان وإسكا أمين iska aadin haddayna saxanoo maasayi حبوا نقول منه waddanka Singapore waxa uu ka go-ay dalka Malaysia dadweynaha inala joogayaan weydiinay iyo waxay nagu yidhaahdeen 1956 ku raacna 1956 anigii yaasiina ku raacnay jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay saddex sadka iduhu waa ba 9 habeen ta 180 habeen ja 150 habeen xa 105 habeen iduhu sadka ay ku dhalaan baa lana weydiiyey سجاشن ba oo 9 habeen sidka iduhu waa ba 9 habeen dadweynaha siyar weydiinayaan laba ka tuurnaan arsiin طلبان كتب laba ka mida ayaan jawaabaha su-aalahaasi ka tuuri doonaa 9kii habeen waa ka baxeen yaasiin waxaa kusoo hadhay ja oo ah 150 iyo xa oo ah 105 حق مغليش xa oo ah 105 sidka iduhu waa xa 105 iyo 150 iyo 105 labadaas kusoo hadhay go-aankaaga u dambeeya مغليش xa oo ah 105 dadweynaha ma kasii yar xaqiijinaa mise waa sidka iduhu waa waxa mika soo hadhay 2 midho هاي 105 iyo 150 مغلية كنت إن شاء الله ja oo 150 sidka iduhu waa ja 150 jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay afar baa soo gaarnay su-aasha afraad waxayna leedahay wasiirkii 1945 ilaa 1951 ee boqortooyadii ingiriiska ee u ololeyn jiray israaci somalilan iyo soomaaliya waxaa lo odhan jiray wasiirkii 1945 ilaa 1951 ee boqortooyada ingiriiska u ololeynayay israaci somalilan iyo soomaaliya waxaa lo odhan jiray ba befin ta john ja caral xa archer dadweynaha studiogeena weydiinana hal mar baa inoo harsan inaan laba ka tuurnana hal mar baa inoo harsan لبان كتب codka kor u qaad yasiid لبان كتب إن شاء الله laba ka mida ayaan jawaabaha su-aalahaasi ka tuuri doonaa wasiirkii 1945 ilaa 1951 ee boqortooyada ingiriiska oo ololeyn jiray israaci somalilan iyo soomaaliya waxaa lo odhan jiray waxaa isku soo hadhay b oo ah befin iyo t oo ah john oo horaad dooratay تي t oo ah john wasiirkii 1945 ilaa 1951 oo ololeynayay israaci somalilan iyo soomaaliya ee boqortooyada ingiriiska waxaa isku soo hadhay t oo ah john iyo b oo ah befin go-aankaaga u dambeeyayaas بيفن كبيفن بيفن john waan ka nimaadnaa befin maan nimaadna wasiirkii 1945 ilaa 1951 ee boqortooyada ingiriiska u ololeyn jiray israaci somalilan iyo soomaaliya waxaa lo odhan jiray p befin jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay yaasiin kale badh baan soo gaarnay 5 baynu nimi nebi maxamed naxariis iyo nabadgelyaba korkiisa aatee suuradda qur-aanka ee uu yidhi adduunyada waxa yaallo oo dhan iyada ayaan ka jeclahay waxay ahayd nebi maxamed sala allahu calayh wasalam suuraddii qur-aanka ee uu yidhi adduunka waxa yaallo oo dhan iyada ayaan ka jecelahay waxay ahayd ba suuratu lfatax ta suuratu lqalam ja suuratu lcimraan xa suuratu lbaqara سورة عمران nebi maxamed naxariis iyo nabadgelyaba ku kasaatee suuradda qur-aanka ee yidhi adduunyada waxa yaallo oo dhan iyada ayaan ka jecelahay ba suuratu faatixa ta suuratu qalam ja suuratu cimraan xa suuratu baqara
سورة الفاتحة سورة الفاتحة وبا نبي محمد نحريس ينا بتقلي بكل ساعة سورة ويلي وحا أدونك يا لون يلا ينكش على با سورة الفاتحة ما الحمد جوابت السؤال شنا سلا سايي صح كتاي اللي حبين سوقاني سؤال أنا كلامنا سوقاني المرة دويني نارسين wadamada suuriya lubnaan iyo falastiin waxaa loo yaqaan wadamada suuriya lubnaan iyo falastiin waxaa loo yaqaan ba bandar qaasim ta shaam ja xijaas xa undulus شام بلاد الشام ta waa bilaadu shaam wadamada suuriya lubnaan iyo falastiin waxaa loo yaqaanaa ta bilaadu shaam jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay toddoba ayaynu soo gaarnay su-aasha toddobaad waxaynu odhanaysaa dagaalkii beder ciidamadii islaamka tiradoodu waxay ahayd dagaalkii beder ciidamada islaamka tiradoodu waxay ahayd ba 313 nin oo watay 2 faras iyo 7 rakuub geela ta 313 nin oo watay 100 faras iyo 13 rakuub oo geela ja 113 nin oo watay 200 oo faras iyo 113 rakuub geela xa 400 oo nin oo watay rakuub iyo fardo صدح بقول يستعد codka kor u qaad yaasiin صدح بقول يصدح يتوه dhammaan 313 way ka simanayaan hal mid ma laakiin maxay wateen ma 2 faras oo biida iyo 7 rakuuba mise 100 faras iyo 113 rakuuba mise 200 oo faras iyo 113 geela dadweynaana weydiino aada ba isugu yadha dhawaatay hal mar baa inoo arsada إن شاء الله تعدد دونا ودين waagaag inaad nacaawisaan ayaan doonaynaa meel xasaasiyaan maranaa toddobaad soo gaarnay aniga yaasiin aada uga fiirsada su-aashu waxay doonaysaa dagaalkii beder ciidamadii islaamka tiradoodu waxay ahayd 113 nin oo watay 2 faras iyo 7 rakuub geela 113 nin oo watay 100 faras iyo 113 geela 113 nin oo watay 200 oo faras iyo 113 geela 400 oo nin oo watay rakuub iyo fardo imise qof ayaa la waaba waxa weeyaan 113 nin oo watay 2 faras iyo 7 rakuub oo geela imise qof ayaa la waa ta waxay ahaayeen 113 nin oo watay 100 faras iyo 113 rakuub geela imise qof ayaa la ja waxay 113 nin oo watay 200 oo faras iyo 113 rakuub geela imise qof ayaa la xa waxay ahaayeen 400 oo nin oo watay rakuub iyo fardo aan soo noqono yaasiin ibraahim 6 qof oo 7 qof oo kamid waxaynu dhahay wax weeyaan 113 nin oo watay 2 faras iyo 7 rakuub geela 6 qof dadku waxay ugu dhahay waa 313 nin oo watay 200 oo faras iyo 113 rakuub geela ba iyo jaabaa loo kala codeeyay laakiin ba'da badan hal qofna oo isdheeriyay go-aanka innagaas kale yaasiin ku raacno iyo inaynu labada qolo midkood aan raacayno إن شاء الله قوان كبدن بين القرآن qofka hal dheeriga baan ku raacno إن شاء الله haddayna qaldaanna waa iska mahadsan yihin haddayna saxaanna waa صح dagaalkii beder ciidamadii islaamka tiradoodu waxay ahayd ba 113 nin oo watay 2 faras iyo 7 rakuub oo geela jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay toddoba ayaynu soo gaarnay su-aasha toddobaad waxayna leedahay heesta ereyadeeda ay ka midka yihiin sanad waliba hoodiya howl iyo dhibaatiyo waxa ay soo baxday sanadkii heesta ereyadeeda ay ka mid yihiin sanad waliba hoodiya howl iyo dhibaatiyo wuxuu leeyahay hadhow lagu xasuustaa waa laga helaa hadhow lagu xasuustaa waxay soo baxday ba 1970kii ta 1960kii ja 1964kii xa 1980kii 1960 1960kii si heestaa goorma ugu horeysa dhegeysatay adu ولحدك إن شاء الله ودي سجل waa dhegeysan marka ganacsatay marka ha inaan laba ka turnaayo inaga dhamaadeen ma filaya dadweynuhu inaga dhamaadeen heesta ereyadeeda ay ka midka yihiin sanad waliba hoodiya howl iyo dhibaatiyo waxa ay soo baxday sanadkii
ta 1960 go-aankaaga u dambeeya insha allah yaasiin go-aankaaga u dambeeya yaasiin waa ku raacaysa lixdankii insha allah lixdankii insha allah heesta erayadeeda ay ka midka yihiin sanad waliba hoodiyo hawl iyo dhibaatiyo wuxuu hadimo leeyahay waa laga helaayo hadhow lagu xasuustaa waxa ay soo baxday sanadkii 1960 go-aankaaga u dambeeya insha allah heesta erayadeeda ay ka mid yihiin sanad waliba hoodiyo hawl iyo dhibaato waxa ay soo baxday sanadkii 60 waa ka nimaadnaa jow 64 ka nimaadna afar iyo lixdanka waa ku eg go-aankaaga u dambeeya afar iyo lixdankii 64 ja oo 64 ayaan wadeegi doonaa jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay yaa ibraahim 8 baynu soo gaarnay meel fiican nimaad ma kugu ambalyanaya insha allah 13 toddobaad waxa uu ka kooban yahay 13 toddobaad waxa uu ka kooban yahay ba 13 maalmood ta 19 maalmood ja 100 maalmood xa 9 maalmood waa 13 toddobaad 13 toddobaad toddobaad ha kelmadda ay wixii 13 toddobaad waxa uu ka kooban yahay ba 13 maalmood ta 19 maalmood ja 100 maalmood xa 9 maalmood toddobaadkiiba waa 7 cisho 13 toddobaad cisho markaa noqonaya koobiyo 19 maalmood 13 maalmood 100 maalmood 9 maalmood koobiyo 19 maalmood 13 toddobaad waxa uu ka kooban yahay ta 19 maalmood go'aadkiisa 13 toddobaad waxay ka kooban yihiin ta 19 maalmood jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay yaa macalin yuusuf ibraahim macalin yaasiin yuusuf ibraahim hambal yaa kule tobamaa soo gaarnay maanta noo soo soconay insha allah dabaynaan ila macalin waddanka adduunka ugu kululi waa waddanka adduunka ugu kululi waa ba sacuudiga ta baxrayn ja cadan xa liibiya yaasiin macalin waaye toban baynu soo gaarnay aad baan kugu hambalyeynayaa inuu toban nimaadno su-aashii waa 200 kun waxaan u baahnay maskaxdana tuujinno inaan laba ka tuurnaano inaga dhammaadeen daduu inooga dhammaadeen insha allah waan iskugu tegi doonaa go-aanka gaadh waddanka adduunka ugu kululi waa sacuudiga baxrayn cadan iyo liibiya midkood ba oo sacuudiga waddanka adduunka ugu kululi waa ba sacuudiga waddanka adduunka ugu kululi waa go-aankaaga u dambeeya go-aanka gaadh sacuudiga baxrayn cadan iyo liibiya xa oo liibiya waddanka adduunka ugu kululi waa xa liibiya qalad ama sax sax ama qalad go-aankaaga u dambeeya liibiya ku goos waddanka adduunka ugu kululi waa liibiya sax ama qalad qalad ama sax codka kor qaadaysa go-aanka u dambeeya macalin insha allah insha allah waddanka adduunka ugu kululi waa insha allahu insha allahu insha allahu liibiya jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay hambal ya macalin
macalin yaasiin ibraahim yuusuf macalin aad iyo aad baan kugu ambalyeynaya aad iyo aad baan mahadsan tahay inaad nagala soo qayb gashaa farxad weyn bay noo tahay macalin yaasiin inaad sii wadanaysid iyo kale maya dadkan janska u banaynaya aada laga tahay aad baan runtii ugu ambalyeynaya macalin yaasiin yuusuf ibraahim ilaa 11 inaa gaarna waa suuragal laakiin dhalinyarta si doonaya inay ka faa'iidaystaan wax badan aad baa mahadsan macalin waxaan doonayaa inaan u yeedho tartamaha labaad ee barnaamijka kulanti wanaagsan daawadeen mar kale waxaan u yeedhi doonaa tartamaha labaad ee barnaamijka cabdifataax cabdilaahi cali cabdifataax cabdilaahi cali aa loo saacabiyo السلام عليكم عبد الفتاح عبد الله علي وعليكم السلام ورحمه الله كسو دول البرنامج كسبان عبد الفتاح waxaad warbixin ka soo in arday tahay hada shaqo kale ay sid in la shaqeyn aniga daawadayaasha inta warbixin siin karto ee halka aad degan tahay shaqood professional waxa uu macallimo ma sha Allah xaqan degan oo tigsiirwan ma sha Allah in barnaamijka oo daawatay kala dadtaa والله صعب barnaamijka wada socotay studio-na la joogta macluumaad siin fara badan laba jeer oo kamid ah dadweynaha studio nagu soo bayaan caawin doona laba jeer oo kamidana min laba ka tuuri doona insha Allah dib inuu adkaada muraad koorta leeg waan ku bilaabi doona insha Allah su'aasha koobaad waxay oranaysaa su'aasha koobaad waxay oranaysaa kutubta samaawiga ah tiradoodu waa kutubta samaawiga ah tiradoodu waa ba 4 kutub ta 5 kutub ja 3 kutub xa 2 kutub ba 4 kutub ba oo 4 kutub kutubta samaawiga tiradoodu waa ba 4 kutub ina 2 ka tuuleed weyn arsiin marka qaarkood 4 kutub tirada qaarkood waxa lagu daraa suxufi ibraahim ka ku dartay shan noqon shan noqon kutubta samaawiga tiradoodu waa ta oo shana jawaabta su'aashuna sidaasi ayay sax ku tahay su'aasha labaad waxayna oranaysaa magaalada burco iyo sheekh waxay isku jiraan magaalada burco iyo sheekh waxay isku jiraan ba 60 kilomitir ta 40 kilomitir ja 70 kilomitir xa 50 kilomitir عندي فتح برعواتك تقولي مركلي الشيخ بات سيمرت قال كيلومتر كمان بين الناس هذا مو قال لي ركاب ولا سمعت ركاب هاي وين انه الدرولي كان حلا اشتدي لقى يابا ان ارديسك كلا قرن الساعه كيلومتر اقول لك دحل لقى يابا وين مرنول لكن انه قال كان اسكلا قال كقال تدينا ندينا واقع aad ugu fiirsada waxaan doonayaa inaad nacaawisaan su'aashan waa muhiim meel muhiimana waan marna aad nooga fiirsada qofka habo qoriga gacanta u taago inuu maray iyo inuu tagay iyo inuu joogo iyo inuu yaqaan macluumaadkiisa qofka habo gacanta u taago su'aashu waxay doonaysaa magaalada burco iyo sheekh waxay isku jiraan 60 40 70 50 imise qof ayaa wax isku jiraan ba 60 kilomitir imise qof ayaa ta waxay isku jiraan 40 kilomitir imise qof ayaa le ja waxay isku jiraan 70 kilomitir imise qof ayaa le xa waxay isku jiraan 50 kilomitir aan soo noqono waxaynu weydiinay magaalada burco iyo sheekh waxay isku jiraan badi way naga aamuseen xaasidnimo kamee waxay sidaan qaldida qaarkoodna waa inay teginba dadaan tiro yarayno ilaa 7 gaari waxay ugu yidhahan waa xa oo waxay isku jiraan 50 kilomitir inaan ku raacno iyo inaan laba ka turno iska hubino inaga go-aanka iskale ma iska hubina laba ka mida ayaan ka tuuri doonaa si aan iskaga hubino dadweynahaasi wayna daaye 50koodii aad baan kugu ambanaya runtii hadday ku raaci lahayn laga yaabi lahayn inaan kici lahayn 60 kilomitir iyo 40 kilomitir baa isku saaray meel fiicanna waad ka soo saartay su-aasha marka intaan qiyaaso ma garanaysaa sawiraan mana 60 kilomitir baan cabir lahaa ilaa 60 ku qiyaasay magaalada burco iyo sheekh waxay isku jiraan dadweynaha ayaanu weydiinay dadweynuhuna 50 bay nagu yidhaahdeen waanu ka shakinay si fiican buu yeelay cabdi fataax kontonka yidhahdo ka baxeen 60 iyo 40 baa soo haray markuu qiyaasay 60 bay jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay
aad baad umahadsantay meel fiican soo saar saddex su-aasha saddexaad labadii nebi ee walaalaha ahaa ee isku marka dhintay waxay ahaayeen labadii nebi ee walaalaha ahaa ee isku marka dhintay waxay ahaayeen ba qaabiil iyo haabiil ta daa-uud iyo nuux ja muuse iyo haaruun xa intaba hal maroo kala duwanaan wayna harsan yihiin inaan laba ka tuurno hal mar ino ina harsan tahay meel fiican oo soo gaana adfitaax labaan ka tuurna laba ka mida ayaynu ka tuuri doonaa waxaa isku soo hadhay ja oo ah muuse iyo haaruun iyo xa oo ah intaba nebi muuse iyo haaruun waan sii xaqiijinay marka labadii nebi ee walaalaha ahaa ee isku marka dhintay ama isku xilliga noolaa ee walaalaha labadaasi nebi waxay ahaayeen ja muuse iyo haaruun jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay afar bay soo gaarnay waan soo dheenay adfitaax su-aasha afraad waxayna odhanaysaa su-aasha afraad waxayna odhanaysaa magaca samada labaad waxa la yidhaahdaa magaca samada labaad waxa la yidhahdaa ba musayana ta samaa dunya ja maacuun xa intaba samada labaad cabdifitaax waxaan ilaabeynaya samada labaad dadweynihii hal mar aynoo harsan inaan kasii xaqiijino codka ka horaataa magacii halkan iga muuqdo markaad dadweynahan weydiin noo wacbixeen way inaad caawisaan baan doonaynaa aada ugu fiirsada su-aashu waxay idin leedahay magaca samada labaad waxaa la yidhaha magaca samada labaad waxaa la yidhaha ba musayana ta samaa dunya ja maacuun xa intaba imise qof ayaa le waa bo waxa weeyaan musayana imise qof ayaa le waa ta oo waa samaa dunya imise qof ayaa le waa ja waxa weeyaan maacuun imise qof ayaa le waa xa oo waxaa la yidhaahdaa intaba badi dadkaasi waa inaga absadfaaco xaasidnimana kama ahe intay garanayna way dhaaftay cabdifitax maa qaldina bay is ihahdeen laba qof oo kamid wuxuu igu yihi waa musayana oo ba'daa laba qof o kale waxan waa ja-do waxa weeyaan maacuun go-aankana inaga iskale bismillah bacdan ba'daynu ku raacna magaca samada labaad waxaa la yidhahaa ba musayana ba oo musayanaa dadweynaha weydiinay dadweynuhu wax nagu yidhaahdeen laba qof oo ka midii intii badna naga soo musayan anaguna ku raacna ku raacna anu ku raacna ta insha allah ku raacna magaca samada labaad waxaa la yidhahaa ba musayana dadweynaha weydiinay dadweynuhu badi waa ka aamusa laba qof ka mid laba qofoo aniga cabdifitaxna aan ku raacnayna waa ba baan wadaeegi doonaa jawaabta su-aashuna sidaasi ayay qalad ku tahay maacuun wey aad iyo aad lagu sacabiye meel fiican ayaan soo gaarnay aad baan kuwaa mudan dhowr jeerayna qaldan baynu iska saarnay waan dadaalnay kulanti wanaagsan daawadayaal waxaan u yeeli doonaa tartamaha saddexaad ee barnaamijka maanta jimcaha ka qeyb geli doona waxaa liibaan axmed maxamed alloo sacabiye liibaan axmed telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland السلام عليكم ليبان أحمد محمد وعليكم السلام كسر دواد برنامج كسبان كدوان ليبان يرى واحد تقف فوق يراي بشهر رمضان كسر قيب قلا نصيب كأقول لك أنا أدبن فوقهم برينه ليبان يرى أحد الحين السنة أرضيت هاي هل كان دقيقته يوحيد دور بحين كلا تكون ذلك هذا يصير أرضي باتاي أقعد دقيقة هذا أبتدي سكوب جلاسكت هاي 5 ما شاء الله هذا يربى فيف مرة في عنده برنامج كذا هرود دعوتيه كذا وانا صح برنامج هذا صعوبة برنامج كذا واحد علينا كسر قيب قش ما هذا نصيب كذا وكان صحابي رب بدر يريد بأخذ دعوة سؤالنا إن شاء الله وحسب حياتي يريد يسوي كذا لكن أنت أنا قرنوما مهمة كقيب قال كقولنا مهم هذا ده حسنا طلبة شهر كم يدا إن نعاون دونا ده كيقول سوين استوديو لبا شهر كم يدا إن لبا كتوري دونا إن شاء الله وأنا كوب بلعب دونا تيار بتسوى أنا كوا آخر يلا صع
xubinta jirka bini aadamka ugu hor samaysantaa waa xubinta jirka bani aadamka ugu hor samaysantaa waa ba dhiigga ta wadnaha ja maqaarka xa madaxa diiwaan yar codka kor u qaad ta oo ah wadnaha xubinta jirka bini aadamka ugu horeysaa waa ta oo wadnaha ah sax baa tahay su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay xarunta qaramada midoobay waxay ku taallaa xarunta qaramada midoobay waxay ku taallaa ba dalka ingiriiska ta dalka sweden ja dalka ghana xa dalka maraykanka codka kor u qaad xa oo ah dalka maraykanka inaan laba ka tuurno iyo dadweynina narsiya sidii marka dhawayd xa qaramada midoobay waxay ku taallaa xaruntoodu xa oo maraykanka ah jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay abadan waad maqashay soo maraykanka waad maqashay qaramada midoobay su-aasha saddexaad waxayna odhanaysaa midabada oo dhan midabka ugu muuqa dheeri waa midabada oo dhan midabka ugu muuqa dheeri waa ba caddaan ta casaan ja huruud xa madow saddex baan soo gaarnaaday codka kor qaad ba oo ah caddaan midabada oo dhan midabka ugu muuqa dheeri waa ba caddaan inay dadweynuhuna caawiyaan iyo inaan laba ka tuurnaan way noo adhsan tahay laba ka mida ayaa jawaabaha su-aalahaasi ka tuuri doona caddaankii uu ka baxay meesha waxaa isku soo hadhay ta oo ah casaan iyo ja oo ah huruud diyaarad hawada duulasa maarata diyaarad maxaa muuqda markay diyaaradda duulasa nimuu fog yahay mid suu fog yahay huruud baa kuu muuqata mise casaan ta oo casaan midabada oo dhan midabka ugu muuqa dheeri waa ta oo casaana jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay casbi diyaaraddu bixisaa sama afar baynu soo gaarnay meel fiican baynu nimi aad baan kugu hambadaynayaa su-aasha afraad waxay noonaysaa nebi khadar calayhi salaam magiciisu waa nebi khadar calayhi salaam magiciisu waa ba balya binu malkam ta khadar binu cabaas ja khadar binu cali xa khadar binu maxamed khidar waa qisada kaafna ninka laga waramee cabda min cibaadina saalixiin uu lahaa nebi inuu yahay taarikhda mufasiriinta qaarna taarikhda culimada shaan qaarna qof addoon wanaagsan inu ahaa unbaa la isla hubaa insha allah marka khadar inay dadweynaha weydiino wayna arsan tahay inaan laba ka tuurnaana wayna arsiin waagaag waxaan doonaya inaad nacawsaan aniga iyo liibaan yare afar baan marnaa meel xasaasiyaan soo gaarnay liibaan ilaa afar sagaa soo waday si fiican maskaxdaada tuujiya hal qofna aatay ciddii hubtaawun ha nacawsa aniga iyo liibaan su-aashu waxay doonaysaa nebi khadar calayhi salaam waxa uu magaciisu ahaa ba balya binu malkaan ta khadar binu cabaas ja khadar binu cali xa khadar binu maxamed imise qof ayaale waa bo waxa weeyaan balya binu malkaan imise qof ayaale waa ta oo waxa weeyaan khadar binu cabaas imise qof ayaale waa ja oo waxa weeyaan khadar binu cali imise qof ayaale waa xa oo waxa weeyaan khadar binu maxamed aan isu soo noqono badi waa amse qof qura waxay tahay lagu yidhi waa kaana ma jiro way adag tahayoo intay garanayeen bay dhaaftay waxay sidaadeen liibaan yaroo halkaa soo gaadhinaha qaldina ja oo ah khadar binu cali inaan laba ka tuurna mar baa inoo harsanaa soma laba ka tuurista naga dhamaad go-aankaaga u dambeeya laba ka mida ayaynu jawaabaha su-aalahaasi ka tuuri doonaa waxaa isku soo hadhay ba oo ah balya binu malkaan iyo ta oo ah khadar binu cabaas ta oo ah khadar binu cabaas nebi khadar calayhi salaam magaciisu waxau ahaa ba oo ah balya
binu malkaan iyo ta oo ah khadar binu cabaas baa soo haray go-aanka gaari lahayn ta oo ah khadar binu cabaas diibaan go-aankaaga u dambeeya codka kor u qaad ta oo ah khadar binu cabaas nebi khadar calayhi salaam magaciisu wax waa go-aankaaga u dambeeya ta oo ah go-aanka gaadh ugu dambeynti ta oo ah khadar binu cabaas nebi khadar magaciisu waxa uu ahaa ta khadar binu cabaas jawaabta su-aashaasi aynu wadeegi doonaa jawaabta su-aashuna sidaas ayay qalad ku tahay balya binu malkaan aada lagu sacabiyo kulanti wanaagsan daawadeel mar kale waxaan u yeedhi doonaa tartamaha afraad ee barnaamijka ka qeybgelaya tartamaha afraad ee barnaamijka ka qeybgeli doona waxa weyn habi maxamed xuseen habi ha loo sacabiyo telefishinka qaranka jamhuuriyadda somalilan asalaamu calaykum habi maxamed xuseen وعليكم السلام kusoo dhawola barnaamijka kasmaal aad baan ugu habi waxaad dhawaanahay tafaasiil iga siisaa inaad ardayo tahay haddii guriga aad joogto halka aad degantahay aniga iyo daawadayaasha intaad macluumaadna siin karto بسم الله magacaygu waa maxamed xuseen waxaan deganahay xidigta waxaana ardayda sanadkan insha Allah baxaysa fanfoorada maasha allah dugsigaagana waa quulaada ma dhigto walaadad maasha allah sanadka markaad fanfoorka ka baxdo maxaa sideeda habiye baraadaaleeda insha Allah xagga sheekh taciid xasan insha Allah sheekh ما شاء الله دينك في عنده ما شاء الله كلية الشريعة دي انت تبغى ان شاء الله الله اكو انفعه هبي ومقع رسمي يروي بهم سواء الناس ma iyo magacayga caadi هبي marka ina madiya habla loo bixiya saasaan maqlay dhawaan anagu iskuul aan marka imgadna ku yeelay ku arkin habi waxaan moodi lahaa ina ma moodi lahaa dhawaan baan maqlay in rag la bixiyo ان شاء الله marka siyaro habi su'aalaha gali doona laba jeer dadweynaha caawin doona laba jeer oo kamid ah mid laba ka tuuri doona insha Allah waan ku bilaabi doonaa muraayada koorta laga habi su-aasha koobaad waxayna odhanaysaa su-aasha koobaad waxayna odhanaysaa ninka keliya ee uu nebi maxamed naxariis iyo nabadgelyaba korkiisa ahaatee gacantiisa ku dilay waxa uu ahaa ninka qura ee nebi maxamed naxariis iyo nabadgelyaba korkiisa ahaatee gacantiisa uu ku dilay waxa uu ahaa ba ubaya binu khalaf ta abujaraax binu jawaari ja ubaya binu خلف ح أبي بن خياط ب أبي بن خليف ت أبي شراح بن شواري ح أبي بن خلف ح أبي بن خياط كاسو بو ايان درناسو ما نين نبي دلوبا ugu daro cid kale ku dishay doonaysa runtii su-aasha ma hubo marka dadkan u dhibaan dadweynaha weydiina waagaag waxaan doonaynaa nacawisaan aada noogu fiirsada su-aashan waxaa asaasi qofka hubo quri gacanta u taaga waa su-aal runtii adagna ninka keliya nebi maxamed naxariis iyo nabadgelyaba korkiisa aatee gacantiisa uu ku dilay waxau ahaa ba ubaya binu khaliif ta abujaraax binu jawaari ja ubaya binu khalaf xa ubaya binu khiyaad imise qof ayaa le waxa weeyaan bo-o waxa weeyaan ubaya binu khaliif imise qof ayaa le waa ta abujaraax binu jawaari imise qof ayaa le waa ja ubaya binu khalaf imise qof ayaa le waa xa oo waxa weeyaan ubaya binu khiyaad aan susan noqono badi dadkaasi waxay nagu yidhahan waa ja oo waxa weeyaan ubaya binu khalaf inaan ku raacnana inaga go-aan kale inaan mid kale dooranay inaga go-aan kale sidii cabdifataax inaan iska sii hubinana inaga garle insha Allah waan ku raacnaa aan ku raacna haddii tii koowaadina qaldaanna waa dhib ma laha waa wax laga qoriyo haddayna saxaanna baasay ninka keliya ee uu nebi maxamed naxariis iyo nabadgelyaba korkiisa aatee gacantiisa ku dilay dadweynaha weydiina dadweynaha waxaan waa bo waa ja waxa weeyaan ubaya binu khalaf annaguna waan ku raacnay jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay su-aasha labaad waxayna odhanaysaa magaalada hargeysa magaalooyinkan waxaa masaafo ahaan ugu dhow magaalada hargeysa magaalooyinkan waxaa masaafo ahaan ugu dhow ba maka ta madiina ja nairobi xa dubay
weli maka maynaan tigi soo madiinana maynaan tigi nairobina maynaan tigi dubayna maynaan tigi marka masaafo ahaan midunbaa ugu dhowaan lahayd mar labaad dadweynuhu qaar tegay inaan ka dhexelana waa laga yaabaa inaan laba ka turnaano wayno banaanta dadweynaha u dhib waagaag aad baa mahadsantihiin mar labaad baan doonaya inaad nacawisaan sidaad markii hore noo caawisaan oo kale su-aashuna waxay doonanaysaa magaalada hargeysa magaalooyinkan waxaa masaafo ahaan ugu dhow maka madiina nairobi iyo dubay imise qof ayaale waxa ugu dhow ba oo maka ah imise qof ayaale ta waxa ugu dhow madiina imise qof ayaale ja waxa ugu dhow nairobi imise qof ayaale xa waxa ugu dhow dubay aan soo noqono ilaa 4 qof waxaynu ugu dhahay nairobi baa ugu dhow inay nairobi tagaan baa laga yaabaa laakiin ilaa 8 iyo 9 qof waxay ugu dhahdeen waxa ugu dhow ba oo maka amba ta Afrika ma ka shaqeysnaa laakiin inta badan aan raacno inta badan baan raacno hadday inta ay nairobi ka soo noqotay sax noqdaan ama qalad noqdaanna oo raali gelinna yarsu xatri halka waxa loo badnaa maka loo badan yahay laakiin 4 qof baynu ugu waa nairobi maka hadday maki sax noqdaanna waa mahadsan magaalada hargeysa magaalooyinkan waxaa masaafo ahaan ugu dhow ba oo makaa baynu ugu dhahan dadweynuhu aniga iyo habina waan ku raacnay jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay habi 3 baynu soo gaarnay su-aasha saddexaad waxayna odhanaysaa muhaajiriintu waa ba asxaabtii madiina ta tahriibayaasha ja asxaabtii madiine ka timid ee maka timid xa asxaabtii maka ka timi ee madiina timi muhaajiriin walansaar soomeen waa asxaabta maka ka timi madiina timi asxaabtii maka ka timi ee madiina timi inaan laba ka timi dadweynaha arsana waxa wata muhaajiriintu waa asxaabtii radiyallahu canhum maka ka timi ee madiina timi jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay su-aasha afraad baan soo gaarnay oo soo dheereen su-aasha afraad waxayna odhanaysaa wadanka dahabka adduunka ugu badan soo saaraa waa wadanka dahabka adduunka ugu badan soo saaraa waa 40 ba koonfur africa ta tanzania ja gaana xa kenya bal labaan isku hayaa miliga labada tuur labada isku haysa markaa ba iyo jada ba iyo ja teeslada way badan tahay labadaas marba mid been noqon midiga tuur markaa aan hubinaa insha Allah hadii labada isku soo xidhan waa halis weeyaan laba ka mid ah ayaynu jawaabaha su-aalahaasi ka tuuri doonaa koonfur afrika waxaa isku soo hadhay ba oo ah koonfur afrika iyo ta oo tanzania koonfur afrika wadanka dahabka ugu badan adduunka soo saara waa ba koonfur afrika jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay meel fiican baad ka soo saartay 5 ayaan soo gaarnay su-aasha shanaad waxayna odhanaysaa jidhka dadka muruqa ugu xooga weyni waa jidhka dadka muruqa ugu xooga weyni waa ba kubka ta bowdada ja cududda xa daanka hoose dadweynaha naga dhamaadeen ja oo ah cududda jidhka dadka muruqa ugu xooga weyni waa ja oo ah cududda inaan laba ka turnaana ma naga dhamaadeen mar baynu harsanaa shirka dadka muruqa ugu xooga weyni waa ja oo cududa go-aankaaga u dambeeya meel xasaasiya marna 5 baynu soo gaarnay kala barkii baan taagan laba ka mid ah ayaan jawaabaha su-aalahaasi ka tuuri doonaa cududii waa ka baxday meesha waxaa isku saaray jidhka dadka muruqa ugu xooga weyni waa ba oo ah kubka iyo xa oo ah daanka hoose kubka waad garanaysaa sooma daanka hoosena waad garanaysaa waa xagga wax laga calaalinaya laga shaqeynayo xadka kor u qaada xa oo ah daanka hoose shirka dadka muruqa ugu xooga weyni waa xa daanka hoose jawaabta su-aashuna sidaasi ayay
صح كتاي ليح بان سوق الناس ما كوان بنينا ميل في عمبني واغادوغا وعاصمة واغادوغا وعاصمة با بروندي تا بوتسوانا تا بنين ح بوركينا فاسو واغادوغا جاده جاء بنين بنين واغادوغا وعاصمة جاء بنين قوان كاقودن بيها بمين في عمل سوقاني جاده جاء بنين واغادوغا وعاصمة جاء بنين قوان كاقودن بيها runtii ma hubo laakiin jecda suma saartaysan insha Allah واغادوغا وعاصمة جاء بنين جوابت سؤاشنا سداسي ayay qalad ku tahay واغادوغا وعاصمة بوركينا فاسو aad iyo aad lagu sacbiyay meel fiican ay soo gaarnay aad ma ka soo shukran waagaag daawadayaal jimco wanaagsan iyo kulanti wanaagsan ayaan mar kale idin leeyahay haddaan intaasi kaga imaado dadka tartamayaasha ee miiska igula sugnaa oo dabcan aan u imaado guryihiina meeradaha ganacsiga gaariga meel kastoo aad barnaamijka kala socotaan ama aad ka dhegaysanaysaanba waxaan doonayaa weydiintii aad warcelinta kusoo samayn jirteen inaan idin soo weydiino markaasi weydiintii aad warcelinta kusoo samayn doontaan habeenkan caawa waxay idin odhanaysaa muraayadda idin hortaa leega ninka aakhiru sabaanka imanaya ee loo yaqaano mahdiga magaciisa oo saddexani waa ba محمد بن عبيدة ت محمد بن علي ج محمد بن عبيد ح محمد بن عبد الله marka aan ku celiyo ninka aakhiru samanka imanaya ee loo yaqaano mahdiga magaciisa oo saddexani waa ba محمد بن عيانة ت محمد بن علي ج محمد بن عبيد ح محمد بن عبد الله mid ka mid ah taariikhaha sheegan ayaa sax ku tahay ba ta jaaka sax ku tahay aad ku soo diri doontaan lambarka gaaban ee 822 ayaan ku soo diri doonaa haddii la yiraahdo su'aashan weydiinta iyo weydiinta dambaba barnaamijkan ka xigeen isugu iman doona waxaan aad ugu mahadcelinayaa ugu dambeyntii akhyaartii ugu sugan stuudiyaha ee maanta jimcaha dabcan barnaamijkan qayb ka ahaa tartamayaalna ay ku jireen caawiyaalla ay ku jireen waxaa sidoo kale iyagana aad ugu mahadcelinayaa xawada soo saarista isku dibariidka iyo markaasi barnaamij soo saarista ee isugu jira hawlwadeenada telefishinka qaranka iyo shirkadda isgaarsiinta ee sabta ee magaalada xagga dambe ka soo bixi doona inta ka horeysa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh jimco wanaagsan la talaabsanaysay casriga internet-aan tagayno taas loo helayo waa tiknoolajigii adduunkee shirkadii telefoonada la talaabsanaysay casriga internet-aan tagayno taas loo helayo waa tiknoolajigii adduunkee